Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Axmed, 30 sano ayaan jiraa. Waxaan rabaa inaan idin sheego sheekadayda marka aan yaraa. Qoys faqiir ah ayaan ka dhashay. Aabahayga shaqo sareysa kama shaqeeyo, maalin walba wuu baxaa. Qofkii shaqaale u baahdo ayuu u soo shaqeeyaa. Maalmaha qaarna guriga wuxuu ku soo laaban jiray asigoon wax lacag ah wadin, waayo maalintaas oo kale wax shaqo ah ma soo qaban. Sidaa daraaddeed xaaladayna way iska adkayd, laakiin aabe marna isma dhiibin. Markasta wuu dadaali jiray, wuxuuna ku dadaalay inuu iskuul na geeyo aniga iyo walaalahaygaba. Waxaana ahaa arday dadaal badan oo waxbarashada jecel. Maalin maalmaha ka mid ah marka ay da'dayda ahayd 15 sano, aabe ayaa guriga imaaday, welina asigoo daalan aadna u murugaysan. Hooyo ayaa ku dhahday, Khaliil maxaa kugu dhacay, mana waad qabtaa? Wuxuu dhahay, xaaladayda ma fiicna, daal aad u daran ayaan dareemayaa. Maxaa kugu dhacay? Raashin ma kuu soo diyaariyaa? Maxaa kaloo u baahantahay aan kuu sameeyaa? Ayaa hooyo ku dhahday, maya waxba ma rabo, waxaan u baahanahay inaad Axmed iigu wacdo, arrin ayaan rabaa inaan u sheego. Hooyo ayaa ku dhahday, maxaa jira? Arrin aad u xun maa kula soo darastay? Aabe ayaa ku dhahay, waan ku baryaa su'aalo ha i weydiinin, aad ayaan u daalanahay, Axmed iigu wac ayaan kuugu dhahay. Hooyo ayaa ii timid, waxayna igu dhahday, Axmed aabbaha ayaa kuu wacayo, arrin ayuu rabaa inuu kuu sheego. Hooyo, aabe ma imaaday ayaan ku dhahay. Haa wuu imaaday ayay iigu dhahday, kaalay. Aabe ayaan u tegey, waxaan ku dhahay, aabe maxaa kuugu dhacay? Fadhiisa wiilkayga ayuu igu dhahay, arrin ayaan rabaa inaan kuu sheego. Waxaan ku dhahay, aabe maxaa jira? Arrin aad u daran maa jirta? Wuxuu igu dhahay, waad og tahay sida aan niigu dadaalayo adiga iyo walaalahaagaba. Waxaan ku dhahay, haa aabe waan ogahay, ilaahay khayr ha ku siiyo. Haddaadan adiga ahaan lahayn maanta anaga sidaan ma ahaan lahayn. Wuxuu igu dhahay, wiilkayga waan ogahay, wili waad dheer tahay, riyooyin fara badan ayaad leedahay, sida inaad waxbarashadaada dhammaysato kadibna aad hesho shaqo aad u sareyso oo tayo leh. Aniga xataa sidaas oo kale ayaan kuula rabay, inaadan aniga oo kale noqonin, laakiin wax kasta waa ay qoran yihiin. Waxaan ku dhahay, aabe kuma fahmin maxaad ula jeedaa? Wuxuu iigu dhahay, maanta laga bilaabo guriga adigaa rag u ah. Waxaan ku dhahay, laakiin sidee ayay sidaas ku dhacaysaa? Aniga iskuul ayaan leeyahay, waana yarahay, adigaa aabahayga ah. Wuxuu iigu dhahay, laakiin aniga ma awoodo, waan xanuunsanahay. Axmed 2 gabdhood walaalkooda ayaa tahay, hooyana waad leedahay, qofaan adiga ahaynna kalsooni kuma qabo. Waa inaad ogaataa ayaga, waa inaad waxbarashada joojisaa, aadna ayaga dartooda u shaqaysaa. wax kaloo aan samayn karna ma lahan. Waxaan ku dhahay, aabe sidaa ha dhihin, ma dhimanaysid, waad caafimaadi doontaa. Hooyo ayaa ii sheegtay inaad xanuunsan tahay, waan kuu soo ducaynaa, anaana ku daaweynayo, laakiin waan dhimanayaa, ha igu dhihin. Wuxuu igu dhahay, walaalahaaga iyo hooyadaada adiga ayaan kugu ogahay, kalsooni buuxda ayaan kugu qabaa. Marka uu sidaas iigu dhahay, ma ogi waxa iigu dhacay. Qolkayga ayaan galay, aad ayaan u ooyey. Isbuuc marka ay ka soo wareegatay, aabe wuu dhintay. Anaan noqday raggii guriga, waxaana layga baahan yahay inaan ilaaliyo qoyskayga, laakiin anoo sidaan u yar maxaan samayn karaa? Si kastaba ha ahaato, waa ehelkayga, inaan wax u qabtana waa waajib isaaran. Iskuulka ayaan aaday, waxaana u soo sheegay waxbarashada inaan iska joojiyey. Waxaana fadhiistay meesha ay shaqaalaha fadhiistaan, uu aabahayga fadhiisan jiray. Nasiib wanaag, gaari ayaa ii istaagay, ninkii saarnaa ayaa ka soo degay. Wuxuu igu dhahay, wiilkayga maxaa meeshaan u taagan tahay? Guriga inaad aada maad rabtaa? Cid ku geynaysa ma lahan miya? Maya, arrinta sidaa ma ahan ayaan ku dhahay. Aabahayga isbuuc ka hor ayuu dhintay, meeshaanna waxaan u joogaa si aan dadka ugu shaqeeyo, kadibna lacagaha aan ka qaato aan ku quudiyo hooyaday iyo walaalahayga. Ninkii ayaa iigu dhahay, waan ka xumahay wiilkayga, waan kaaga tacsiyeynayaa dhimashada aabahaaga, laakiin iskuul ma dhigatid miya? Weli waad yar tahay, mas-uuliyaddan aadka u weyn sidee ayaad ku xamili kartaa? Iskuulka maanta ayaan ka soo tagay, mas-uuliyaddan inaan xamilana qasab ayay iigu tahay, waa inaan ogaadaa hooyaday iyo walaalahayga. Ninkii ayaa iigu dhahay, meeqaa kula dhalatay? Waxaan ku dhahay, 2 gabdhood oo mataane ah ayaa ila dhashay, 2 sano ayaan ka weynahay. Wuxuu igu dhahay, ka waran haddaad aniga ila shaqayso? Waxaan u baahanahay wiil oo geesi ah sida adiga oo kale, inuu ii noqdo kalkaaliye. Waxaan ku dhahay, maxaan kaala shaqaynayaa? Ninkii ayaa iigu dhahay, aniga magaalada isbitaal ayaan ku leeyahay, baryahanna shaqooyinka aad ayay iigu badan yihiin, waxaana u baahanahay qof gacan yare ii noqda oo ii ilaaliyo shaqooyinka isbitaalka ka socda. Haddii aad arrintaas diyaar u tahay, waan ku soo dhaweynayaa. Waxaan ku dhahay, haa diyaar ayaan u ahay, markasta waxaan rajayn jiray inaan dhakhtar noqdo. Ninkii ayaa iigu dhahay, waad noqonaysaa dhakhtar, haddana iskuulka ayaan kugu celinayaa, adiga iyo walaalahaagana anigaa waxbarashada niiga dhiiwaayo, laakiin hal mid ii ballan qaad, inaad noqonayso dhakhtar aad u wanaagsan. Waxaan ku dhahay, laakiin arrintan mas-uuliyaddeeda anay isaaran tahay. Wuxuu igu dhahay, arrintaas dood ha ka keenin, sidoo kale waad ila shaqaynaysaa, lacagtaadana waad qaadanaysaa. Waan hilmaamay, magacaaga ayuu iigu dhahay. Axmed ayaa lay dhahaa ayaan ku dhahay. Wuxuu igu dhahay, waa magac aad u wanaagsan, anna raxim ayaa laygu dhahaa. kaarkan qaado,
waa cinwaanka isbitaalka berito imo si aad shaqada ugu bilowdo. Haye waad mahadsantahay mudane Raxiim ayaan ku dhahay. Guriga ayuu igeeyey, hooyo iyo walaalahayga ayuu bartay, shaah ayuu nala cabay, kadibna wuu soo baxay. Maalinta ku xigtayna marka aan iskuulka ka soo baxay waxaan aaday isbitaalka, shaqada ayaan bilaabay. Maalintaas shaqada ayaa ii soo dhammaatay, guriga ayaan ku soo laabtay, kadibna waajibaadkayga ayaan xaliyey. Nolosheena sidaas ayay ku socotay ilaa aan ka qalin jebiyey kuliyadda caafimaadka. qalin jebinta kadib waxaan u tagay mudane Raxiim, waxaan ku dhahay mudane, wax kasta aad ii soo samaysay waan kaaga mahad celinayaa. haddaadan adiga ahaan lahayn maanta heerkan ma soo gaari lahayn. wuxuu igu dhahay Axmed, dadaalkaaga iyo kartidaada ayaad ku soo gaartay. waxaan ku dhahay intaas oo idil Alle subxaanahu wa tacaala kadib adiga ayaa sabab u ahaa mudane. haddaadan adiga ahaan lahayn aniga mas-uuliyadda isaarneed ma xamili lahayn. wuxuu igu dhahay adiga ayaa mas-uuliyadda qoyskaaga xambaaray, adigoo wax barta ayaad shaqaynaysay, wax kasta ay naftaada rabtana waad ka xarimi jirtay, walaalahaaga ayaad siin jirtay, wiil aad u fiican ayaad tahay, wanaag kastana waad mudan tahay. waxaan ku dhahay Alle subxaanahu wa tacaala kadib sababta adigaa lahaa. haddaadan adiga ahaan lahayn maanta meesha shaqaalaha laga wato ayaan fadhin lahaa. mudane si aan kuugu abaalgudo maxaan sameeyaa ii sheeg. wuxuu iigu dhahay xaqiiqda haddaan kuu sheego hal mid ayaan kaa codsanayaa, ii sheeg ayaan ku dhahay. anna waan samaynayaa haddaadba adiga iga raali noqonaysid. wuxuu iigu dhahay aniga raali ayaan kaa ahay, dalabkaygana wuxuu yahay gabadheeda Radwa inaad guursato ayaan rabaa. qof adiga kaa wanaagsan oo guursan lahaa ma jiro. marka aan arrintaas maqlay aad ayaan u farxay. marka ugu horeysay aan Radwa arkay ayaan jeclaaday, laakiin isla markaas waan u muujin waayey jaceylka aan u qabay. wuxuu iigu dhahay Axmed maxaa kugu dhacay. waxaan ku dhahay mudane xaqiiqda haddaan kuu sheego gabadhaada mid ka fiican ma guursan lahayn, laakiin ayadana waa inaad ra'yigeeda weydiisaa. maalintii xigtay ayaa mudanaha isoo wacay, wuxuuna ii sheegay Radwa inay guurkeena waafaqday. isbuuc kadibna xafladda arooskeena ayaa dhacday. sidoo kale waxaa la guursaday walaalahayga. hooyana aniga iyo Radwa ayay nala nooshahay. mararka qaar nolosha way nagu adkaanaysaa, waxaana loo baahan yahay qofna saacida, waayo qof keligiisa meel lama gaaro. intaas ayay sheekadeena ku eg tahay. fadlan haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo.